sheegaya hoggaan marka la yiraahdo sifaad buu leeyahay tilmaamuu leeyahay hoggaan qabiil lama doorto oo lacag lama doorto waxaa lagu doortaa dadka iyo dalka inuu horumarinayo tilmaanta ugu horeysa waxa weeye inuu dadka jecel yahay mushaharkiisa ugu fiican waxa weeye markii uu arko ummadda uu xoqabtay oo horumartay oo faraxsan mushaharkiisu lacag maaha guriyana maaha xoolana maaha waxa weeye waxa uu u qabtay ummaddaas legasiga ka haraya taariikhda ka haraysa waxaa ka mid ah sifaadka looga baahan yahay hoggaanka inuu aragti dheer leeyahay jidka la marayo shanta sano soo socota xulka waayo hoggaankaasi inuu si waadaxa ugu jeedo dadkana u sharxo gelinsiiyo waxaa ka mid ah inuu caadil yahay oo caadilnimo ummadda u falo waxaa ka mid ah inuu geesi ku dhiiran yahay ummadda madax bannaanideeda iyo qarannimadeeda hadday heer gobol tahay iyo hadday heer qaran tahayba sifaad aad u tiro badan weeye laakiin annagu waxaan hadda ka qabsanaynaa jacaylka dadka iyo dalka iyo horumarintooda waxaan kula dardaarmahayaa xildhibaanada cusub ee reer puntland oo heer federaal annagu heer qaran baan nahay qolada aan ku jiro in ay waajibkooda ka baxaan hoggaan wanaagsanna doortaan ilaahayna uu ku muxuu ahaa duwo taas bay ku noqonayaan xildhibaano wanaagsan fiican la jecel yahay